dadka qaarkood yani waxa weeyaan carabkooda dikriga ayay bareen dikriga ilaahay baa carabkooda bareen markaasaa xataa hadduu iska soconayo ilaahay buu xusaya ilaa uu carabkiisu la qabsaday qof walbana wixii uu aadka u qaban jiray unba hadhow ka soo butaacaya dad badan baa markuu sakaraadku qabto waxa weeyaan hadal maaragtay dabada qabsada oo shahaadada loogu taag waaya oo waxyaabo uu ku celcelin jiray oo maaragtay u badnaa ayuu ku hadaaqaya marka ay sakaraadku isugu yimaado way dhacdo waa la arkay dad badan oo khalqiga ilaahay ka mid oo saalixiinta la arkay quraan baa mar allaala marka wax ku soo habsadaan ay dabada qabsadaan wallahi waxaanan iloobaynin waxaan filayaa inaad 99 ama 98 nin saaxiibkay ayaan dhakhtar geeyay waxa la yiri ninkan waa inuu amaliyad waa inuu qalliin galo wala qala arday baan wadahay labadayduba marka meeshaan cilmiga ka baranayno meeshaan deegaanka u ahayn ma ahayn waan soo kaxeeyo berberaankeena isagoo aad u xanuunsanaya dhakhaatiirtii aan dhakhtarka ugu keenay baa waxay yidhaahdeen ninka waa in la qalo waa la qala ehelkiisi ma joogo wadankeena jaarla oo fog buu jooga markii la qalay erbadii suuxinta lagu mudayay ee qolkii qalliinka laga soo saaray dee isla maqaya oo mukhadaraad wala suuxiyay muddo 2 saacadood ku dhow ayuu wuxuu ku celcelinayay subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi midada kalimati khalqigi dhakhtarka joogay isagu isma oga waxay ku soo urureen qolkii la dhigay qol waaro dad kale oo la qalay yeelan dadkii wax aamusa iyo wax ooyay noqdeen baynama kuwa kale oo dhakhtarka lagu qalay ay waxay ku hadaaqayeen aan sheegi karin markuu iskii u aamusay oo soo miiraabay kadib muddo kadib ayaan waxaan weydiiyay su'aal waxaan ku ori miis ogeyd wixii aad ku hadaaqaysay markii lagu suuxiyay saa intuu gacanta iigu dhagay oo si xooga ii qabtay ayuu igu yiri arwalaal ilaahay uu ku fadeexaday yahay igu odhan ya وحسرته محاد كو هذا محاد طلب لهيد مركزان كل واحد كل علميز سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وسنة عرش إلما رقق كصوتي كزحني الحمد لله على حساني أما كلمة لمدة waxaan isweydiiyay anoo isaga la fadhiya talo hadaan halkiisa joogi lahayd maxaad ku hadaaqi lahayd haadi ka soo bixilaato nin kale walaalada zumaladeeda kamida hooyadii baa la qalay arigaaba anagu joogno markaas waxay ku celcelinaysay intii ay ku jirtay irbadii takhdiirku ay suuxdintu qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dadka qaarkood heesay qaadayaan heeso iyagoo qaaday kaga baxay waar hebel waa shahaado adaab sheegay ka Allah hadlay sabama waxaad ogaataa waxa aad naftaada barto ee ay carabkaagu qabatimo ayuu marka aad dhibi kugu habsatay kugu kadiso carabkaaga waxa ka soo baxay يتقربون إلى الملك بفعلهم طاعته وترك للعصيان يتقربون